ciidankii nabiga calayhi salaatu wasalaam oo Maka iyo xaggeedii u soo dhaqaaqay markii 10 maalmood ay tagtay bishii Ramadaan ee barakaysnayd sanadkii 8aad ee hijriyada ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam ka boqolay Madiina isagoo u jihaystay Maka tirada uu watay ee ciidanka ay waxay ahaayeen 10,000 oo saxaabada ka mid radiyallahu anhu 10,000 ayuu watay waxa magaalada Madiina uga sii tagay arrimaheeda salaada iyo in muslimiinta si maamulo Aba Rahmin al-Ghifari ayuu watay nabiga calayhi salaatu wasalaam juxfa meesha la yiraahdo markuu marayay ayaa waxaa la kulmay adeerkii Abbaas ibn Abdul Muttalib oo caruurtiisii iyo ehelkiisiiba wata isagoo muslim ah oo soo hijrooday ayuu nabiga halkaa kula kulmay Abwaa markii uu nabigu marayay ayaa waxaa la kulmay ابن عمه أبو سفيان بن الحارث إن أذيركي أي الله كلمي إيو إن أبتغي عبد الله ابن أبي أمية فأعرض عنهما لمن كان كتشيس والنبي وجهي سمسين waayo waxay ahaayeen iyagoo nabiga xiriirka qaraabada la leh dadkii ugu dhibta badnaa markii uu Maka joogay ee dhibaatadii ay ka mid ahaa deedna Salama oo nabiga xaaskiisa ahayd ayaa waxay rasuulka ku tiri rasuulka Ilaahayow yaanu noqon inanka adeerkaa dhalay iyo inanka eedada ay dhashay dadka kuwa ugu ayaan daran agtaada deedna Ali bin Abi Talib baa wuxuu ku yiri Abu Sufyaan ibn al-Haris marka waa laba Abu Sufyaan ibn al-Harb waa ninkii Quraysh soo diraysay ee Quraysh odaygeeda ninkan Abu Sufyaan ibn al-Haris ibn Abd al-Muttalib baa nabigeena adeerkii weey wuxuu ku yiri nabiga orad u tag oo xagga wajigiisa soo qaabil oo waxa tiraahdaa sidii walaalihii Yuusuf ku yiraahdeen قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين آية آخر إلهي با adiga waxa weeyaan ku doortay oo guushi gacanta ku galiyay annagu gaf baanu ku jirnay nabiga calayhi salaatu wasalaam ma jecla cid ka hadal wanaagsan inuu la arko deedna sidii buu sameeyay Abu Sufyaan nabiguna wuxuu ugu jawaabay laa tasriiba calaykum al-yawm يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين ما أنت وحدن بياردين هايستا ما تشيرو إلهي بايدين دنب الدافية إذين النحرسنا رسولك عليه الصلاة والسلام سعود كيسيبو سيبو تيمالينتا إساقو صومن دادكنا إسوميهين ilaa uu ka soo gaaray kadiid meesha la yiraahdo deedna nabigu waa afuray dadkana wuxuu amray inay afuraan socodkiisii buu sii watay wuxuu soo degay bimari dahraan ayuu yiri ciidankiisii halkaa markii uu dejiyay habeennimo wuxuu nabigu amray inay dab shidaan
deedna nin walbaaba qori daba buu shida waxa ay noqotay dabkii la shiday imisuu tirada ciidanku ahaa yaa 10,000 marka waxa baxay 10,000 oo dab baa noqday bay noqotay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilaaladana wuxuu u dhiibay habeenka Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ayuu gaadhka u diray Abbas ibn Abdul Muttalib markii ay muslimiintu degeen halkan ciidanku degan yahay bimarid dahraan la yiraahdo ayuu wuxuu soo kaxaystay baqaladii nabiga calayhi salaatu wasalaam deedna wuu soo baxay bal hadda isagoo indhaynaya inuu la kulmo cid Quraysh ka mida oo Quraysh warka gaarsiisa ka hor intaan duulaanku ku iman say nabiga ugu yimaadaan oo ay gacmaha u dhiibaan waxaynu hore u soo tilmaanay Quraysh inay xog moog ahayd oo aanay warbahayn Abbas oo wareegaya ayaa wuxuu la kulmay Abu Sufyaan iyo ninka la yiraahdo Hakim bin Hizam oo iyana wardoon ah ayuu la kulmay Abbas baa ka warramayo wuxuu yiri Ilaahay baan ku dhaartay anigoo wata baqashii nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa waxaan maqlay hadalkii Abu Sufyaan iyo Badiil ibn Warqa oo isku celinaya hadalka Abu Sufyaan baa wuxuu leeyahay waniyo caawa dabkan oo kale waligay maan arag iyo ciidan intaa leeg waligay ma arag deedna Badiil baa wuxuu leeyahay waa reer Khusaaca nimankii ayaantii dhaweyd waxyeelada loo geystay oo soo socda weeye markaasuu Abu Sufyaan yidhi Khusaaca walla waa ka yar tahay intaa awood intaa leeg iyo ciidan intaa leeg inay soo ururiyaan ma gaadho Khusaaca buu Abbas baa wuxuu yidhi deedna waxaan gartay codkiisii baan gartay markaasaa waxaan la hadlay Abu Sufyaan isna codkaygii buu gartay deedna waxaan idhi wuxuu weydiiyey waa maxay waxa kale buu yidhi caaw dabkan la shiday iyo ciidankani muxuu yahay markaasaan ku yidhi hada rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam kani waa rasuulka Ilaahay Quraysh baana loo socdaa deedna wuxuu yidhi maxaan yeelaa oo xeelad ah waxaan idhi xeelad kuuma hayo haddii nebigu gacanta uu kugu dhigo qoortaa lagaa goynayaa waxaad yeeshaa soo fuul baqaladan aan saarnahay nebiga aan kuu geeyo oo aan nabadgelyo kaaga qaaday way soo raaceen labadii nin kalena dib bay isaga noqdeen waxaan soo dhex marnay ciidamadii iyo dadkii dabka shidayay oo guutooyinkii muslimiinta ah deedna markaanu dab soo marno qolo meel ku shidatayba wuxuu yidhaahdaa ayna yidhaahdaan waa baqashii nebiga weeye waxaana wata nebiga adeerkii saasaa laloo sii daynay waa la iska kaayo dhaafay
إلى أن كسر مري عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأن عمر ويقول صوكع وكما بيقول هذه قرت قفكا كالوايو مركو أركينك يا أبي سفيان وحقا يقدم بفوشان أيوه لو عدو إلهي مضبوطة عدو إلهي أياد وداها إلهي باب محضله إيسو قعان قريه يضو أن وحبويان هشيس بعلم تنوى دقاش حق النبي هو عرب عمر عباس نوى كالضبور رسول كان أقدر يو أقليبي مركاسا عمرنا نوصو قلب عباس وحوي لرسولك إلهي ونكن هو أبو سفيان لأن عمر باسوب وحوي لرسولك إلهي يو إذا أنقرتك قوية مركاسا عباس يري رسولك إلهي ونكن أنا نبت قليو سيئي محاكا دلغات بدن محاكا كرامة بدن هدان أقال لها إلهي سكدي إن إله كلا أوتشيرو وحبو إتاري لها بيش أبا سفيان مواني كودوان إن أقاتو أني رسول الله إن رسولك إلهي أهي مركاسو يليها بأبي أنت وأمي لكن نفط أيضا أرنكا وحبائي قتله إلى الضره عباس باكويل ويحك هوغا أسلم والإسلام أو الشهادة النبطة إلهي أدريسو يا محمد إنو يا رسولك إلهي انتهى قورت اللقاء فأسلم مركاسو إسلام هو شهادة النبطة عباس بامركا وحيد يا رسول الله رسولك إلهي أو أبا سفيان وننشعل فانكا وحد يشاء وحو فانكا لكتو قال النبي وحيد نعمها من دخل دار أبي سفيان فهو آمن قرق أبي سفيان إنكي قال وآمن ومن أغلق عليه بابه فهو آمن نك الباب كيس صاحب دانا اسنوى آمن ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن مسجد كحرمة لقفك قلانا هو آمن صدح ذا وحب الله شيئا ماي الصباح دي مركا مالين ثلاثاء وهي تضبية طوانت هاي بشهر رمضان sanadkii 8aad ee hijriyada ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam halkii ka soo dhaqaaqay marid dahraan waxaana uu soo dhaqaaqay magaaladii Makka wuxuu nabigu amar ku siiyay Abbaas ibn Abdul Muttalib oo uu la socdo ninkii Abi Sufyaan ahaa in halka toga laga talaabayo wadada ciriirka ah ciidamadu ay marayaan magaalada ka gelayaan halka inaad Abu Sufyaan ku sii hakisid inta ciidanku soo marayaan dowlatus waxa sii arko meeshii baa la geeyay halkii buu joojay ciidankii baa soo maray iyo calaamadoodii guuto waliba ay gaar u wadato markastoo ay qabiilo soo martaba wuxuu Abu Sufyaan oranayay Abbaasow waa kuwama kuwan markaasuu yiraahdo tusaalahan reer Sulaym weey markaasuu yiraahdo maali wali Sulaym annaga iyo Sulaym maxaa isu kaaya keenay markaasoo qodob kale soo martaa uu yiraahdo kuwan waayo uu yiraahdo Muzayna uu yiraahdo annaga iyo Muzayna maxaa la kala galay
qabiilo marbay soo martaa mid walba wuxuu ilaahaa maxaabal kuwa noo keenay waa qabaa'ilkii reer Yasrib ee Madiina deganaa ilaa ugu dambeyntii ay soo martay guuto muhaajiriin iyo ansaar isugu jira oo wada maskaraatiya indhaha mooye meel kale aani muuqan deedna markaasuu yidhi subxaanallah kuwanina maxay ahaayeen markaasuu yidhi hada rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam guutadani waa rasuulkii ilaahay oo muhaajiriintii iyo ansaartii ay la socdaan deedna wuxuu yidhi maanta kuwan cid ishortaagaysaa ma jirto cid awood leh oo ishortaagi kartaa ma jirto nimankii Quraysheed waxa ku dhacay si kedisa ayaa loogu soo duldhacay rasuulka calayhi salaatu wasalaam markuu Abu Sufyaan u yimi ayuu wuxuu ku yidhi Cabbaas baa la hadlay oo wuxuu ku yidhi anna jaa ilaa qowmika warar nimankii tolka u dig ila la soo galba Makee deedna Abu Sufyaan waa cararay ilaa Maka galay deedna qayladiisii ugu dheerayd buu ku dhuftay yaa macshara qurayshay buu yidhi hada Muhammad kani waa Muhammad baa soo socda wuxuu wataa ciidan iyo awood aydan ishortaagi karin ninka guriga Abu Sufyaan gala waa la deynaya intii kale waa ka reebay markaasaa islaantiisii baa soo kacday Hinda bintu Cutba deedna shaarubahay qabatay waxay tiri war waxa doqonka ee fulayga ee sahankii reerku dirtay sahankii ugu xumaan noqday wardila muxuu ku qaylinayaa ku hadlaya markaasuu yidhi waryaalahe war gabadhan iyo idin dagin buu yidhi waxaan soo arkay wax la ishortaagi karo maaha faman dakhala daara Abi Sufyaan fahuwa aamin war ninka guriga Abi Sufyaan gala waa aamin ayuu ku celcelinay markaasay yidhahdeen qaatalaka Allah ilaahay ha ku dilo wamaa tuqni canna daaruka oo daartaadu maxayna tara gurigaagu muxuu wax tarayaa imisa geli kara gurigaaga ama muxuu qaadayaa wey markaasuu yidhi waman aqlaqa calayhi baabahu fahuwa aamin ninka gurigiisa gala iska soo xidhaa waa aamin masjidka xaramkaa ninka galaana waa aamin markaasaa dadkii yaaca nin waliba gurigiisii iyo xaggii masaajidkii ayaa loo kala yaacay waxaa markaa dabadeed dhacday inay is-urursadeen dadkii markii qof waliba gurigiisii galay qaar halkaa galeen waxaa is-urursaday koox gaar ah oo isugu timi Cikramata ibn Abi Jahl iyo Safwaan ibn Umayya iyo Suhayl ibn Amr meesha Khandama la yiraahdo ayay isku urursadeen si muslimiinta ula dagaalamaan inagu waxay iska celinayna meela nimanka waxa la socdo ku jiray nin reer Bani Bakara Xamaas ibn Qays baa la oran jiray wuxuu ahaa intaan ciidanku iman ka hor ayuu hub iyo waxba urursan jiray warmo seefo alaabo waxaasuu soo gurtay
markaasaa islaantiisii baa waxay ku tidhi maxaad waxaanaad ururinaysa iyo hubkan muxuu yahay qaala wuxuu yidhi waxaan u urursanayaa limuxammadin wa asxaabi muxamed iyo raggiisa ayaan ugu diyaargaroobayaa oo u urursanayaa hubkaa markaasay waxay ku tidhi war muxamed iyo raggiisa cidna ishortaagi kari mayso markaasuu yidhi waxaan rajaynayaa raggaa uu wato qaar ka mida inay shaqaale kuu noqdaan inay kuu shaqeeyaan oo aan raggaa kuu keeno baan ku tusi doonaa hadday maanta yimaadaan maxaa ceeb oo aan qabaa buu yidhi hubkii oo dhammaystiran baan haystaa seeftii baan haystaa hub aan soo noqonayn baan hayaa wakaa markaa fule wax ka qoryo badan waatee hore loogu maahmaaha waxaasuu urursada deedna wuxuu u tegay nimankaasuu u tegay safwaan iyo cikrame ibni abi jahaal iyo raggaasuu ku biira rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo ciidankiisii horey u soo socdeen markuu soo gaadhay diitawaa meesha la yidhaahdo ayaa nebigu madaxiisa hoos u dhigay isagoo ilaahay isu tawaaducinaya markay u muuqatay guusha iyo fadxiga ilaahay ku manaystay ilaa gadhka nebigu uu sigay inuu gaadho koorihiisii halkaa markuu marayay buu nebigu ciidankiisa qaybiyey khaalid ibnulwaliid oo la socda wuxuu u dhiibay ciidanka midigta ka dagaalamaya waxaa kaloo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu amray inuu magaalada maka xagga hoose ka soo galo wuxuu yidhi haddii quraysh ay cidi iskiin hor taagto oo ay dagaal damacdo laaya waxaa kaloo zubayr ibnulcawaan saxaabiga la yidhaahdana uu u dhiibay ciidankii bidixda calankiina waa u dhiibay maka xagga sare ka soo gal buu yidhi ilaa markaa aynu isugu nimaadno biljuxuul sidaa nebigu u qaybshay ciidankiisa ayay ku dhaqaaqeen khaalid iyo raggiisii lama ay kulmin wax ka tirsan nimankii mushrikiinta haddii ay la kulmeen way baaciyeen raggaa ay kulmeen ee la dagaalamay waxa ay ka dileen khaalid saxaabigii caanka ahaa ee kirs ibnu jaabir alfihri iyo khulays ibnu khaalid ibnu rabiica labadaas saxaabi ayay dileen iyagana wax kale ma heline ciidankay ka gooni socdeen oo meel dhinaca bay uga baydheen marka wadda aan waddadii ahayn ayay ku dhaceen halkaasa markaa lagu dilay nimankii surursanayay khaalid ayaa la kulmay iyo raggiisii khandama markii waxoogay la istuurtuuray ayay jeesteen 12 nin meelaha ayayba ahaayeen waa yaaceen ninkii odaga ahaa ee la socday ee xamaas ibnu qays ee markii dhawaad islaantiisa ay wada hadlayeen ayaa isna ka mid ahaa raggii soo cararay isagoo ordaya buu gurigii islaanta yidhi dabeedna daf buu gurigii yidhi wuxuu ku yidhi aqliqa calaya baadi albaabka yaxidna albaabka yaxid buu yidhi intuu gurigii soo galay markaasaa waxay ku tidhi
وأينما كنت تقول أو واحد يقول شو بيسيء قورتي دوي حقوق قبتبت واحد يقول هاي ما مركاسو قبل يقول إنك لو شهدت يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة هذا تشوق لهي تقولي مالنتي هلكي لا نجاها لي إنك صفوان عرري عكرمة عرري بحال الصفاه أن قلك وكتيرين النهلات وأن وحوي وحبوا كادلين لم تنطقي في اللوم أدنى كلمة إمعنا أنا تنبي إقام ماشي وحبا كدعاء آموي مركا ووحي واحد باسوعر هوري نوت المال الفلو وحكا قرية بدل خالد مركا واسوس عضي مركي نمنكا وجبيي إلى رسولك عليه الصلاة والسلام وقيمي صفاء زبير اسنوى صوص عضي على الكيسي وحكتها بالحجون عند مسجد الفتح مساجد كالله مسجد الفتح الكاس وحوية المركز اسمه قبائية الذي النبي قال وقسمي إلى رسولك عليه الصلاة والسلام رسولك صلى الله عليه وسلم وكعيد ولدنا سقي مهاجرينتي أنصارتي وقلبنا يوهر الصعداء ودنع الصعداء دن والبكم مريا إلى المساجد في كسوق علي وعصوق بالنبي وحجر الأسود كي والسلام نقول يجيبوا الضوافة كعبدي نبي قول قول يرجو كعنت كوسيته guriga markan uu dawaafayo waxa hareerihiisa yaala 360 sanam ay qurayshada tan kuwiibu u shii nabigu ku tumaatiyay wuxuu akhriyo qul jaa al-haqq wa zahaqa al-baatil inna al-baatila kana zahuqa haqqi baayimi baatilkiina waa suulay ساسو النبي مركا أريدي أصنامتي ساسو الداتش النبي عليه الصلاة والسلام وحي آثارها الشرك هدي صورتهاي هدي وحي أي مركا سنمضى قريتورك وقلقين شرين أي تهاي wixii kacbada la dhigay ee sawiro iyo shimbiro la sameeyay iyo waxa soo dhanba nabigu waa masaxay calayhi salaatu wasalaam waa ka baabi nabigu albaabkii kacbadu galay uu soo xidhay waxa la socdo Usaama iyo Bilaal wuxuu markaa nabigu istaagay albaabka qaabilsan gidaarka qaabilsan albaabka kacbada halkaas markaa uu tiir nabigu ka samaystay halkaas dadka kala hadlay nimankii Qurayshado dhan oo isu soo baxay oo isu yimi sufuuf iyagoo ah نبي مركز لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده وعلى النبي عليه الصلاة والسلام ولمنكي قريشات ويلي يا معشر قريش maxay baad u malaynaysan anni faa'ilun bikum ila idin ka qaadi maayo illa dalimun qof dalina mooyaan cid kale idin ka xoogaysa ma jirto ya Usmaan inna allaha istamarakum ala baytihi ilaahay gurigiisa idin ku aaminay oo amaanadiisa idin dhiibay fakulu cuna mimma yasilu ilaykum wa halaydin keeno من عتاب ابن سيد حارس ابن هشام كعبة ميل كمدة من مركا فديان
deedna bilaal baa dhawaaqo adibay ninka la yidhaahdo Cataab ibnu Usayd ayaa wuxuu yidhi laqad akrama Allahu Usaydan aabihii buu sheegaya alla ilaahay aabbahay ilaahay waa sharaf buu u dhameeyey alla yakuuna samica hada inaanu waxan maanta maqal oo uu maqlo wax cadhageliya addoonkii yaraa bilaal baa halkaa maanta ka adimaya xaaris baa dabeedna yidhi ilaahay baan ku dhaartay haddaan ogahay inuu xaq yahay waxani waa raaci lahaa markaasaa Abu Sufyaan wuxuu yidhi aniga miyaa anigu waxba ku hadli maayo kelmad odhan maayo waayo haddaan hadlo qururuxan baa inaga warramayo waxaan idhaahdo qururuxan ay sheegaya markaasaa nebigu ku soo baxay calayhi salaatu wasalaam iyagoo halkii fadhiya buu soo mara markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi qad calimtu aladii qultum waan ogahay oo waa ka warqabaa wixii aa lahaydeen markaasuu u sheegay adigu waxaasaa tidhi adna waxaasaa tidhi adna waa adiga iska aamusay waxaa yidhi wakaa labadii nin ee markii hore hadlay baa dabeedna waxay yidhaahdeen nashhadu annaka rasuulullah waxaanu qiraynaa inaad tahay rasuulka ilaahay ilaahay baanu ku dhaarannee arrintan iyo sheekadan cidna nalama joogin markii aanu iswaraysanaynay waxaa isku lahay oo aanu nidhaahno ciddaasaa warkii idinka geysay aanu nidhaahno marka waxaa caddaatay rasuul ilaahay oo xagga alle looga warramayo inaad tahay nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay guushaa iyo fadxigaa uu siiyey ee maalinkaa fatxu maka dhacday dadkii uu cafiyey ee uu saamaxay wuxuu ka soo reebay qaar 9 nin ayaa laga reebay oo dambiilayaal ah 9kaa nebigu wuxuu amray in la dilo xataa haddii ay kacbada daaheeda galaan in la dilo cabdulcuza ibnu khatal cabdullaahi ibnu abi sarx ikrama xaaris muqays 9 nin iyo 2 dumar ah oo iyana waxa weeyaan heesi jiray oo ibnu khadalkaasi uu lahaa oo nebiga caayi jiray calayhi salaatu wasalaam intaa hadur buu ka dhigay dhiigood marka waxay ahaayeen dad dambiilayaal dagaal bay ahaayeen oo dhibaatadii ay haysteen ee islaamka u geysanayeen ayaa waxa weeye sidaa loo galay ninkii ibnu abi sarax ninka la yidhaahdo cismaan baa wuxuu u keenay nebiga calayhi salaatu wasalaam deedna wuu uga shafeeco qaaday sidaasaa waxa weeyaan dhiiggiisii lagu daayay islaamnimadiina waa laga aqbala cikrama ibn abi jahl waa baxsado yaman buu qabtay markaasaa gabadhiisii ka daba tagtoo soo celisay nebigay nabadgelyo u weydiisay dabeedna nebigu markaasuu ka yeelay uu islaamkiisina waa hagaagay ibnu khatal intuu cararay ayuu kacbada hoosta ka galay dabeedna nin baa nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam oo yidhi rasuulka ilaahay oo ninkii aada amarka ku bixisay in la dilo kacbadii buu haystaa daaheedii markaasaa nebigu yidhi uqtulhu dil kacbadiisa mooyee dil maanta ku baxsan maayo halkii baa lagu dilay
qaybna markaa ragga waa ka soo islaamtay qaybna markaa waa la laayay waxa uu nabigu calayhi salaatu wasalaam uu ka khudbadeeyay maalintii yawmul fatxiga ee labaad ilaahay buu mahadnaqay waa ammaanay deedna wuxuu yidhi ayuha annaas dadow in allaha xarama maka ilaahay xurmuu siiyey magaaladan maka tan iyo markii uu abuuray samooyinka iyo arlada xurmadaasay leedahay ilaa yowmi alqiyaama